13 November waa maalintii ay naawiliyeen shacabka Soomaaliland inay maruun hortooda timaado si ay u doortaan cidda hoggaanka iyo talada dalkan majaraha u qaban doonta. halkanina waa goob kamid ah goobaha codbixintu ka socotay ee gobolka Salal gaar ahaan degmada Xariirad waxaana ay dadweynuhu ku jiraan safaf dhaadheer iyaga oo raba inay codeeyaan. haddaba TV-ga caalamiga ee Ariel TV oo wax ka weydiiyay dadweynihii goobahaasi ku sugnaa ayaa waxa ay u dhignaayeen sidan. saaka 6 ayaan u dareernay inaan codkayga siino xisbiga aan taageersanahay shacabka degmada reer Xariiradna aad iyo aad isku soo baxeen codbixintana diyaar bay u yihiin in codka bixiyaan waa kuwa safafka dhaadheer ku jira. Xariirad guud ahaan nabadgelyada waa 100% doorashaduna si wanaagsan u socotaa waa goobtii saaka 6 goobuhu furmeen sidii u furan yihiin aad iyo aad u fiican tahay. haddana waxaan u bixi doonaa Cabdulqaadir ayaa soo kormeeri doonaa xaaladda ammaanku waa okay dad safafku si fiican u socdaan wax dhibaato ma jiraan insha Allah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nabadgelyo noogu rido kana mid ah qurba joogta oo doorashada madaxtooyada uga timid dibadda haatana ku sugan degmada Xariirad oo 3 goobood laga codeynayo si fiican bay u socotaa codbixintu dadku safka si nidaamay ugu jiraan nabadgelyo ugu jiraan insha Allahna nabadgelyo iyo guul ay ku dhamaan doontaa. guud ahaanba doorashada madaxtooyada ee ka bilaabatay dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa gobolka Salal ay uga socotaa si habsami ah iyadoo aan la soo sheegay wax dhibaatooyin oo deegaanada gobolkani ka kooban yahay ka dhacay inta ay doorashadani socoto. waxaana ay dadweynuhu ku jiraan safaf dhaadheer iyaga oo sugaya inay codeeyaan isla markaana ay ka tashadaan masayrka aayahooga cidda 5 sano ee soo socota hogaamin doonta. waa Cabdi Majiid Ibraahim Muumin, Ariel TV, Xariirad.